walba oo dunida ku yaala waxa uu leeyahay munaasabado u gaar ah oo laga maamuuso dalkaasi 27 Juun waa maalin ku weyn shacabka Djibouti waa maalintii lagu dhawaaqay xornimada Jamhuuriyadda Djibouti waa maalintan ka xorownay xagardaamayaashii gumaysiga isku soo baahaysay inay duleeyaan dadka iyo dalka habeenkaasi ayaa ahaa habeenka xorriyadda gacanta laga gashay dadka ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Djibouti ra'iisul wasaare hore Jamhuuriyadda Deni Ahmed Deni ayaa ka hadlay habeenkaasi taariikhiga dadka waxa ka farxisay rabitaankooda ahaa inay helaan xorriyad 1927 waxaa lagu dhawaaqay xornimada Jamhuuriyadda Djibouti lamana kala qaybin karo shacabka Djibouti waxay helaan xorriyadoodii oo lagu dhawaaqay caawa madaxweynaha hore Jamhuuriyadda Xasan Guuled Abdidoon ayaa ka hadlay habeenka taariikhiga isna waxa aan sugaynay ayaan helnay Jamhuuriyadda Djibouti waa dhalatay ugu dambeyn shacabkana waxay heleen madaxbannaanidoodii kadib xuskii 27 Juun 1977 oo noqday xuskii ugu dambeeyay ee nagala qayb galaan madaxdii gumaysiga Faransiiska Orlando ayaa dalka isaga baxay 28 Juun madaxweyne Xasan Guuled Abdidoon ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay dalka saacadoon kadib sida ugu dhaqsiyaha badan ay xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti ugu beertay oo ay xubin uga noqotay qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta waxaana ay sidaasi ay ahayd siyaasad damaanad looga helayay beesha caalamka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa dhowr heshiis oo iskaashi la saxeexatay dawladda Faransiiska si ay u maareeyaan dalka dhaqaalaha ugu weyn ee dalka uu lahaa waxay ahayd qadka tareenka isku xidhay Djibouti iyo Itoobiya dadaal badan ayaa jiray laakiin soo dhalinyaradu ay sameeyeen waxa lagu heshiiyay in dalka laga dhaqan geliyo goobo waxbarasho oo wax lagu barto waxa la diyaariyay macallimiin inkastoo ay iska yaraayeen oo fara lagu jirin karay macallimiinta wax ka dhigay dugsiyada waqtigaasi si aan wax uga ogaano xaaladda waxbarasho ee waqtigaasi jirtay ayaa waxaan waraysi la yeelanay Xasan Shixim oo ahaa macallinkii ugu horeeyay ee wax ka dhigay dugsiga dhexe oo luqadda Faransiiska dhigi jiray 1977 j'avais déjà commencé à travailler à cette époque sida saxda waxa jiray qaar kamid ah dadka oo aqoon jaamacadeed lahaa waqtigaasi laba dhakhtar ayaa sidoo kale jiray ku dhawaad 10 macallimiin oo barayaal ka ahaa dugsiyada isugu jira dalka kuwa dhexe iyo kuwa sare dhalinyarada siyaasad ahaan waxa ay kor u qaadeen noloshooda iyo hamigooga waxa jiray dad badan oo shaqayn jiray sidoo kale qaar ayaa bishaar fiican qaadan jiray dhalinyaradana si degdeg ah ay kor u kac u sameeyeen jireen taasi waa sababta u weyn ee ay u jireen dhowr arday oo jaamacadeed Xasan Shixim ayaa waxa uu sheegay in daraasaadkii waxbarasho la bilaabay 1970 ilaa 1977 oo aan ka mid noqday aniga ahaan waxaan shaqada macallinimo bilaabay 1976 sanad ka hor waqtigii xorriyadda marka ma jirin macallimiin badan qaaraddan Afrika 2 sano kadib waxa aan maamulo ka noqday dugsiga dhexe ee gobolka Tajora markaas waxa mamnuuc ka ahayd gobolada dhanka waqooyi macallimiinta Faransiiska inay wax ka dhigaan gobolada waqooyi ee dalka sababta awgeed macallimiinta Djibouti waxa ay xil iska saareen inay muujiyaan in iskoolkaasi kaliya loo dhiibay ay ka soo bixi karaan kuna faraaday karaan macallimiinta ayaa ahaa kuwa aqoon lahaa markaasi ilaa maanta waxa aan doonayaa inaan halka ka sii wado inaan aqoontayda aan la wadaago jiilka cusub aniga oo da'daydu ay tahay 66 jir waxa aan wali jeclahay shaqadayda macallinimo aan muddo ka soo shaqayn jiray tan iyo 1977 waxbarashada dalka horumar weyn ayay sameysay kumanaan arday ayaa qalin jabiyay sidoo kale kumanaan macallimiina ayaa ka soo baxay oo arday waxbaray